309 arday oo dhameysatay heerarka koowaad iyo kan labaad ee jaamacadda Hope oo iskaashi waxbarasho la leh jaamacadda Kampala ee dalka Uganda ayaa maanta xaflad ballaaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Professor Najiib Sheikh Abdulkarim oo ah gudoomiyaha jaamacadda Hope oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda iyo kulliyadaha ay ka baxeen. sanadkan waxaa qalin jabinaya laba qaybood. qaybta hore waxa waa 6 arday oo sidaad maqlaysay ka qalin jabiyay caafimaadka, maamulka, bii'ada iyo dhaqaalaha. 245 waxay ka qalin jabinayaan qaybta koowaad ama bachelorka, iyaguna waxay kala baxaan qaybo caafimaadka oo umuliso iyo clinic iyo public health ay kamid yihiin, iyo qaybo maamulka iyo computerka hadii la yiraahdo hawshii kulisaysa. marka guud ahaan waa 305 bay noqonayaan sanadkan. munaasabada oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo marti sharaf kale. wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga Saalax Shariif Xuseen iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Cismaan Ibrahim Daqare ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka hadashay xafladda isla markaana uu hambaliyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hope. soo jeedinayaa already uu ka hadlay polytechnic in la hirgelin doono, laakiin xataa jaamacadaha caadiga hadda jira waxaan arkaa anugu in work placement ama internship wax la yiraahdo loogu sameeyo public officeska ha noqdeen ama private sector ha noqdeen. taas runtii waxay ka caawinaysaa ardayda inay ku apply gareeyaan waxay soo barteen. macnihii annaga ka wasaaradahan iyo walaalkay Daqare wasaaradda waxbarashada iyo Khadiija iyo dhammaan inta lagu leeyahay cabinet-kaba waxaan u soo jeedinayaa inay fursado siiyaan jaamacaddan oo kale oo Hope ardaydeeda ay yimaadaan ay arkaan qaybaha kala duwan ee wasaaraddu say u shaqeeyaan. ayaga naftirkooda waxa looga baahan yahay maadaama ay wax barteen haddii xitaa shaqo official ay wasaaradaha ka helin in markay darsaan ay research inta sameeyaan wixii ay ku beeri karaan ay ku beeriyaan. maxaa yeelay dalkan waa wada leedahay aysan jaamacadda Hope si jaamacadaha kale maanta aysan dalkan ka jiri lahayn ardayda waxay aadayaan wadamada dariska wadamo kala fog. marka waa loo soo daadiyay gurigooda ayaa loo keenay. taasna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. munaasabadu ay dhaxtal u hayeen suugaan kala duwan oo ay halkaasi ku soo bandhigaan dhalinyaro oo uu horkacayay macallin Bashiir Badane ayaa ka qaybgalayaasha madadaalinayay. qaar ka mid ah ardayda ayaa dareenkooda kala sheekaystay. maanta waa dareen ka duwan maalmihii hore. waxaa ku guuleysanay ama in muddo waxaan sugaynay aan helnay muddo dheer ama dariiq dheer hool aan ku soo jirnay oo ah in master degree mar una helno, taasoo maanta u taagannahay. magacayga Ciise Maxamed Maxamuud la yiraahdaa. waxaan wax ka bartay jaamacadda Hope University, gaar ahaan partner la tahay jaamacadda Kampala University ee Uganda ku taala. muddo 2 sano wax ka baranayay. faldigaygan wuxuu ahaa MBS ama Master Development Study. maanta maalintii ugu dambeysay waa faraxsanahay runtii. dareenkeena lama soo qiyaasi karo. dareen aad cajiib ah oo in muddo waa dareemi kartaa muddo waxaan soo jiray in maanta ugu dambeyn la guuleysto. marka aad aan u faraxsanahay. shahaadadii in muddo aan sugaynana waan helnay. marka waxaan mahad celinayaa dhammaan maamulka jaamacadda oo in muddo waqti lagu bixiyay iyo ardaydii saaxiibadeyda ahaa. magacayga haddaan ku bilaabo waa Cabdullaahi Cali Maxamed waaye. faculty waxa waaye Health Science Department of Public Health waaye. dareenkayga lama soo koobi karo. waa garan kartaa muddo 4 sano qof wax baranayay, tacliin ku jiray ay u soo gabagabowday. waa garan kartaa aad iyo aad baa faraxsanahay. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Maxamed Axmed Cali. waxaan bartay kulliyadda Health Service Management waa Master of Health Service Management. waxaan u bartay waxaan doonayaa in aan isbeddel ka sameeyo xagga caafimaadka wadanka, xagga maamulka caafimaadka ee wadanka. wasiirka wasaaradda haweenka ee horumarinta xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid ahayd wasiiradii ka qayb gashay munaasabadda ayaa ka hadashay ahamiyadda waxbarashada iyadoo ku adkaysay ka qaybgalayaasha inay dowladda kala shaqeeyaan sugidda amniga dalka si shaqo abuur loogu sameeyo da'yarta ay ka mid yihiin qalin jabiyayaasha jaamacadda Hope. in la isku duubnaado in aan xalaawayaasha laga hortago horumarkaas diidan. maanta kuwa koofiyadahaas wato ayagii waalidkood farxad isla taagan ayaa indhaha loo ka ridi jiray. inay dhacdo ma aha inaad aqoon u barataan inaan guryaha ku haysanno xalaawe aan ogoleen in wax la barto. waxbarashada waxaan idinku dardaarmayaa inay midda maadiga aad dhinac wadaan midda diinta.
diinka islaamka diinteena islaamka haddii allaha awoodda leh oo ogolaado